sanadkan maanta gobolka Awdal waxaan rajaynayaa inuu guul soo hoynayso waayo ragga halka ka akhriyay quraanka waxa weeyaan iyo goboladii kale maadaama soo arkay insha Allah biidnimo Ilaahay ku soo guuleeyo awal rag ayaa ka tagi jiray gobolka balse maanta alxamdulillah wa bifadlillahi ta'ala hablo ayaa idigu biiraya oo tartanka caalamiga madaxweynaha ka qayb galiya gobolka matali doona wasaaradda diinta iyo waqaafta gobolka Awdal ayaa soo agaasintay tartanka Qur'aanka Kariimka ee madaxweynaha Soomaaliland waxaana munaasabadan ay ka qabsoontay masaajidka Harowe bartamaha magaalada Boorama waxaana imtixaanka u fadhiistay dhowr iyo 60 arday oo iskugu jira hablo iyo wiilal waa markii koobaad ay habluhu ka qayb qaataan waxaana munaasabadan kala soo qayb galay wafdi ballaaran oo hogaaminayo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta gobolka Awdal madaxda wasaaradda diinta iyo waqaafta heer qaran maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama cilmowdiin waxgarad aqoonyahan iyo marti sharaf kale ugu horreeyna waxa faahfaahin kooban halkaasi ka bixiyay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta gobolka Awdal Sheekh Xamuud Nadiif marka ugu horeysa Ilaahay baa mahadle alxamdulillah Ilaaha maanta inoo suurta galiyay in aan ku tartano oo ardaydeeni kitaabka Ilaahay maanta ay ugu tartamayaan kaalmaha si ay u kala gali doonaan dhammaantood horta ninka halka yimid horta dhammaan wad guuleysatay maxaa yeelay ninka halkaas ka soo xaadiriyay waa geesina Ilaahay baa la jira waana dhammaantiin idii ducaynayna balse in way ka soo bixi doontaa intii Ilaahay siiyana waanu haneynayna waxaan leenahay hambalyo Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala kitaabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur Ilaahay buu nabi Maxamed oo kitaabkiisa ugu soo dejinay si aad dadka mugdiga iyo kufrinimo uga saarto nuur iyo iimaan u gaarsiiso ka ayaan ku tartabanaa maanta Ilaahay mahadi way ta kale ما شاء الله لجنة تحكيم كل كي بحث بلارنا سميني إن دد إله الله يلك عشاني نصيب هناك والدي صوح الله شيخ قليل له أقدمية يوم هو يدي يا به قرآن قبل كي أيه جامنية تابعدي مدحوينا جمهورية الصومال الآن إيه مدحتوية ذوي taasina waxay tii sanadii hore ka sii bilic badan tahay awal rag ayaa ka tagi jiray gobolka balse maanta alxamdulillah wa bifadlillahi ta'ala hablo ayaa idigu biiraya oo tartanka caalamiga madaxweynaha ka qayb galiya gobolka matali doona waxaan Ilaahayna uga baryayaa hablahaasi maadaama ay maanta ugu horeyso inuu Ilaahay nasiibkooda wanaajiyo dhammaantiinba yagna duco dheer baan leenahay دلالا إن شاء الله تعالى وهذا اللي بسيهاي وعكلوا إلهي مهدية أو وزيرك أو غافته أو ما تكسو كردي إنه إلهه أرضي صوبحي كي صوبحي وصودكي أيها إساق الله بالبرد يا صور راعو تاسنا وحويان طوان إلهي نوقم بهذا له وزيرك أو غافتنا لين هاي بارك الله فيك طلابه وين بدكرو قاضي inta kadibna hadalka waxa ka daba qaatay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ku sugnaa goobta iyagoona ardayda Ilaahay uga baryay inay guuleystaan waxa loo sharafay ka wasaaradahan in wasaaradda diinta iyo waqaaftu iyo madaxweynaha qaranku ay kor u qaadayaan dhiirigelinayaan mar walba ay gortaagan yihiin sida ay daayirta kitaabka Ilaahay baraysa u dhiirigelin lahaayeen sidana way ogsoonahay tartankan waa tartanka ugu heer sareeya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland tartanka sareeyo qaranka ma jiro waa tartankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland jaayisidiisana waxa bixiya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa nasiib u yeelatay inaad noqotaan imika gobolkii shanaad ee maanta uu ka dhaco tartankani gobolkii bariga soo marnay gobolkani waa kii shanaad weega soo socota saddex arday ee lamada soo baxa iyo saddexda hablood ee soo baxa waxa iman doona caasimadda si loo tartamaan goboladii kale ee kala duwanaa waxaan arkayaa dhageysanayay arday xul ah oo ay soo xuleen maamulayaashu iyo jumciyaadku inay goobta isku haleeleen sanadkan maanta gobolka Awdal waxaan rajaynayaa inuu guul soo hoynayso waayo ragga halka ka akhriyay quraanka waxa weeyaan iyo goboladii kale maadaama soo arkay insha Allah biidnimo Ilaahay ku soo guuleeyo marka waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyarta hay'adda quraanka ku tartamaysa
maanta aad loo dhiirigeliyey waan ku faraxsannahay waana arrin muhiim ah in lagu farxo oo laga qayb qaato sideedaba xifdiga quraanku uu ka duwan yahay waxyaabo kale uu ka duwan yahay waa kalaamka ilaahay waxaan in badan aragnay qofka quraanka xafiday inuu wax kasta oo loo dhigo baran karo kulanka quraanka ee soo qabqaabisay wasaaradda awqaaftu madaxweynuhuna oo qabto ee quraanka annaga masjidhaan waxaan diyaar u nahay mar kaste inaan wasaaradda iyo la shaqeyno culimada insha Allah ta'ala waxaan leenahay soo dhawaada tartamaysa quraanka ku tartamaysa wixii ugu khayrka badnaa lagu tartamo ayaad ku tartamaysaan kalaamu rabbil alamin ilaahay waxaan idinka baryaynaa sidaa uu sheegay isduuh kulligiin waad guulaysateen maxay qiraa'ada akhriyeysaan baa guul ah oo aad ajar iyo xasanaad ka helaysaan haddaad soo baxdo number 1 gashay haddii kale labadaba waad guulaysateen kitaabka quraanka anika haysta guulaystay fi aakhirada adduunyadana uu guulaystay aakhiradana uu guulaystay intiina halkaa fardida ee dhalinyarada ah ee quruxda badan leh waxaad u soo diyaar garowdeen waa in aad kitaabka quraanka ayad gacan midigta ku haysataan inaad ku tartantaan inta soo baxda iyo inta soo bixinba dhammaantiin bay wada guulaysateen taasaad ku guulaysateen aad halkaa ku fadhidaan hadday naga soo dhex baxdo 2 iyo 3 iyo 4 ay naga soo dhex baxdo iyayna u arkin inta kalina inay guulaysatay way guulaysanaysaa dhammaantiin bay wada guushaasaad mudan tihiin waxaa kale oo sharaf leh oo ilaahay loogu mahad celiyaa culimadii soo tabacday dadka ma iimanina waa la soo beeray waa la idin soo beeray culimadii waxay idin soo bartay waalidkii idin soo ababiyey barnaamijka quruxda badan leh ee musaabaqada ah ee kaga soo qayb gasheen maanta ku matalaysaan gobolkeena waxaan ugu rajaynayaa dadkii gacanta idin soo qabatayna ilaahay inuu ilaahay adduunyo aakhiraba liibaano waan baleenayaa ardayda guuleysatay waalidiintooda macallimiintooda waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro sidoo kale macallimiintii qiimaha iyo sharaftaba lahayd iyaguna imtixaanka ka qaaday waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro barnaamijka dowladda hoosena uu jirayaa waa barnaamij aad u ballaaran dadkii awalba gacanta ku hayn jiray culimada degmada ka tashan doonta waxaan leeyahay laga soo qayb galo anigoo markaa waan taagnaanayaa hadii la haydo aniga golahayguba waxaan leeyahay dadaalkan libilaabno warno marka wax la qabto iyaga moraligooga dhisma marka wax la qabo waayna moraligooga dhimanaya waxaan leeyahay masjidkan ma aragtay culimada joogtanaya Sheekh Fataax iyo tiimkiisa iyo imaamka iyo waxba teechana ugu fiican ajina ilaahay noo bariyo salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii waxa natiijada ku dhawaaqay ardaydii kaalmaha hore soo galay qaari Cabdi Fataax Saylici musaabaqadii ra'iiska sanadkan waxa lagu soo diray qayb dumara qaybta dumarka waxa laga rabaa 3 qof qaybta ragana waxa laga rabaa 3 qof musaabaqada sida taqaaneen waxa ka mas'uula oo yani uga wasaaradda diinta iyo qofta uga mas'uula isku duwaha gobolka Sheekh Xaamid ba mas'uul uga ah isaga iyo cidii uu idmada baa la kaxayn doonta insha Allah ta'ala sidii caadadu ahayd marka waxaan ku hormareynaa gabdhaha mise wiilasha maanta gabdhaha ku hormareynaa maadaama sanadkii koowaad oo ay gabdhuhu maraan ay tahay waxaan idin sheegay imtixaanka gabdhaha idin kama warramin raggan uma dhageysanay waan ka bixinay gabdhuhu maanta aad bay u fiicnaayeen wax idin farax galiyana waad ka maqli doontaan insha Allah ta'ala inay hargeysa ka soo dhigaan markay la soo tartamayaan gabdhaha kale gobolada ah gabdho fiican baan soo xulnay ilaahay idinkii ducada uma ku kabaynaa waxa ugu horeysa macalinkeedu uu istaagiyo noo iman doona Asmaa Tayyib Bade macalinkeedu ma jooga Asmaa Tayyib Bade kaalinta koowaad ee gabdhaha weey darajadeedu waa 100% saddexda lajnatu tahkiimka qofna waxba kuma qorin marka macalinkeedii ma jooga hadduu macalinkeedina maqlayo wuxuu la soo xidhiidhi doonaa wasaaradii iyo tiimkii wasaaradda jooga kaalinta labaad waxaa gashay Asmaa Taahir Ahmed macalinkeedii ma jooga Asmaa Taahir Ahmed waa 97 darajadeeduna iyaduna waxay la soo xidhiidhi doontaa markay warkeena u gaaro insha Allah ta'ala wasaaradda la soo xidhiidhi doontaa
kaalinta saddexaad waa khawla mubaarak maxamuud 95.3 wey 95.3 hadduu macalinkeedii joogana xagga hore u imani haddii kalena waxa weeye wasaaradda la soo xidhiidhi doonaan kaalmihii ragga ayaynu galaynaa insha allahu tacaala musaabaqada madaxweynaha sanadkan 3 qof ee aan soo xulnay 3 qof oo aan kala dhicin weeye 3 qofba waxay keeneen 100 bay haystaan ana 100 baan u qoray labada sheekhna waxay u qoreen 100 ma sha Allah dhah marka sidaan yeedhinaya iyagu uma kala horeeyaan une waa 3 magac isku xiga 3 magacba waa isku hal kaalin koowaad ay wada galeen darajada haystaan waa 100% weey waayahay waxaa ugu horeeyay Maxamed Yuusuf Ibrahim ma jooga haddii uu la joogin macalinkiisa ma jooga macalinku ha u istaago sheekh Nimcaan ha u istaago ma sha Allah dhah kaalinta koowaad 100% ardayga labaad waxa weeye Ibrahim Xasan Nuur Xaaji macalinkiisa hadduu joogo ha u istaago ma sha Allah dhah isagu kiyana ma jooga uu jooga ما شاء الله waayahay waxa isna la darajo ah oo ardayga saddexaad ah waa Axmed Yaasiin Maxamed Barkhad ma joogaasna ay macalinkiisina ma sha Allah isku hal macallin weey ma sha Allah warbaahinta Cishqi TV Boorama.